إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. waxaynu maanta bilaabi doonaa in sha allahu tacaala in argumentiska ama dooda mulxidiintu qabaan iyo dooda ay qabaan dadka mu'miniinta ahi. waxaan usoo horeysiin doonaa yani dooda mulxidiintu ay qabaan waxaa ka mid ahayd almaadda inay fii daatiha azaliyatay, eternity and static and eternity baa idhahdeen universe-ku yahay, inuu leeyahay isbeddel aanu lahayn, weligii uu soo jiray, weligiina jiri doono. shayga labaadee baynu dhe ugu xooga badanaa iyagu adeegsanayeenna waxay kaloo ahayd maadaddu ama materialku haddii uu helo wakti ku filan, oo waktigaa ku filan noqon karo wakti tafaaculaadka ama compound reactionsku ay dhici karaan oo dheer wixii la rabaaba inay coincidentally ama iyadoo aan wax purpose laga lahayn ama intention aanu jirin inay samaysmi karaan. yani qadiyadu inay tahay chance and coincidence inay ku samaysmayso. labadoodaasi daliil ama labadaasi waxay uga dan lahaayeen inay ku dumiyaan adilada ay qolada iimaanku rumaysan yihiin, oo koow uu ka mid yahay daliilu takwiini waliijaad ama daliilu lkhalq ama burhaanu lkhalq iyo daliilu lcinaaya walnidaam. haddaba soo duuduba waxaynu leenahay in la rumeeyo alle subxaanahu wa tacaala ama dunida tan ilaah abuuray inay leedahay waxay culammadii hore daliishan jireen, gaar ahaan falasafadii iyo cilmulkalaamkii burhaan la yidhaahdo ama daliil ama argument la yidhaahdo burhaanu liijaad ama burhaanu lkhalq ama burhaanu lxuduuth, intaba waa la yidhaahdaa. burhaanka abuurka ama soo darinta ama ahaanshaha. laakiin modern philosopherska iyo culamadan dambe sciencesku waxay u adeegsadaan oo yidhaahdaan iyagu cosmic argument bay yidhahdaan. cosmic argument. cosmic argumentku sida uu dhigan yahay waa si kooban. waxaynu odhan karnaa asal waxa uu aayadda qur-aan ilaahay leeyay أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. dadkan waa ma waxa la abuuray wax la-aan? Do they came from nothing? mayay iska yimaadeenuun just waxa la arkuun iyagoo ah, mise am hum lkhaaliquun, mise iyagaaba is abuuray oo iyagaa kuwa wax abuuray? cirkan iyo dhulkan ma iyagaa sameeyey baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. bal laa yuuqinuun, ma rumaysna baa la yidhi subxaana wa tacaala. sidaa awgeed burhaankani wuxuu ku salaysan yahay aragtida odhanaysa laba muqadamo ama laba premises iyo natiijo conclusion. labada muqadamo iyagoo kookooban waxay yihiin, waxay dhahaan kullu mawjuudin lahu bidaaya. kullu mawjuudin lahu bidaaya laa budda lahu min masdarin saabiqin calayh. weedhaasi waxa weeyaan wax kasta oo mar bilaabmay, u fiirsa hadda,
shardiga ku xidhan waxa weeyaan wax kasta oo mar bilaabmay waa inuu leeyahay master saabiq wax ka horreeyay oo bilaabay wax kasta oo mar bilaabmay si kale way u tacbiiriyeen waxay yidhaahdaan kullu xaadithin laabudda lahu min muxdithin bay yidhahdeen wax kasta oo soo darriyey waxaan jiri jirin oo yimi wuu iska ahaaday miyaad aqbalaysa wuu iska yimi uun daartan wax la arkun iyadoo iska dhisan it's not logic socanka maaha waxa weeyaan wax kasta oo jira ama soo darriyey ama yimi waa inuu jiraa maxay wax soo darrisiiyey ama jirsiiyey ama keenay ama waxay yidhaahdaan kullu mutagayirin laabudda lahu min mugayirin waxaasoo dhamme waa qawaaciddii falsafiga ay culamaa ilkalaam aw ilfalsafa isticmaali jireen wax kasta oo isbedela qaarkood waxay yidhahdaan kullu mutaxarikin laabudda lahu min muxarikin socod kasta oo bilaabmay wax hadduu dhaqaaqo waa inuu jiraa maxay wax dhaqaajiye wax taagan iskama dhaqaaqaan socankaa maaha shaygu hadduu taagan yahay oo aad aragto isagoo dhaqaaqay waa there should be a cause waa inuu jiraa sabab dhaqaajisay hadduu sidan ahaa oo isbeddel ku yimaado waa inuu jiraa maxay sabab isbeddelka keentay haddii aanu jirin oo uu jirsiimo oo abuurmo oo la arko waa inay jirtaa maxay cid abuurtay qaacidada koowaad waa first premiseska waxay yidhahdaan waa kaa qaacidada labaad ee tan la socotaa waxa weeyaan alkownu lahu bidaaya aw alcaalimu xaadithun dunida tani haddaba mar bay bilaabantay weligeed may soo jirin eternity ma laha shay azaliya maaha shay abadiya maaha shay weligii soo jiray maaha mar bay bilaabantay waa inuu jiraa markaa cid bilowday amase waxay dhahaan alcaalamu xaadithun caalamku waa xaadith waa wax yimi labadaasi muqadamo المقدمات الصغرى في علم المنطق لوجيكس كما كلا دغان يسو لما ورن جيرين مقدمات انت لا تخو دبتنا نتيجه لما شيغي جيرين waxay leeyihiin labada muqaddamada koowaad oo oranaysa wax kasto isbedel ku dhaco ama wax kasto socod bilaaba ama wax kasto oo soo dariya ama wax kasto oo abuurmay waynu jiraacid abuurtay muqaddamada labaad oo oranaysa hadaba kownkan aynu dhex joognaa universe kani mar buu bilaabmay ama barbilow buu leeyahay ama hore uma jirin ee hadduu bilaabmay natiijadu markaa waxay tahay idan alkownu lahu masdarun saabiqun calayh ay muujid kownku waa inuu leeyahay wax ka horeeyey oo abuuray ama yuujadu lilcaalami muxdith waa in la helaa adduunka cid soo darrisiisay labadan premises ee muqaddamaadka iyo natiijada tani imaam al-Ghazali ayuu ka soo qaatay waataynu nidhi ninka la yidhaha William Lane Craig ayaa analytic philosophy doctorate-kiisii from Birmingham University intaasuu ku qaatay inuu labada premises isagu siduu u dhigay waa kan iyadoo af ingiriisiya the cosmological argument buu yidhi whatever begins to exist has a cause waa first premiseska whatever begins to exist has a cause wax kasta oo mar uun bilaabmay wuxuu leeyahay maxay wax bilaabay premiseska labaad waxa weeyaan the universe began to exist adduunka kani mar buu bilaabmay natiijadu therefore the universe has a cause where does in philosophy or in logics hadday labada premises hore ama labada muqaddame hore hadday sax noqdaan natiijadu waa sax labada muqaddame haddii la beeniyo ama se la buriyo natiijaduna sax noqon mayso labada muqaddamo haddaba inay sax yihiin maxaa tilmaamaya markaynu ku noqonno philosopherskii iyo iyagu halkay taagnaayeen iyagu waxay leeyihiin hal shay
ومحي waxay leeyihiin almuqadama lula muqadamada hore ee whatever begins to exist has a cause muqadamadaas waxay leeyihiin waa muqadama badihiya daruuriya muqadamo istidlaal u baahan maaha muqadamo u baahan in la caddeeyo la proof gareeyo maaha bay leeyihiin waa muqadamo human mindku caqliga bini aadamkoo dhami uu rumaysan yahay waayo waxay ku tacalluqdaa bay dhahdaan qaanuunka loo yaqaano qaanuunu sababiya law of cause and effect muqadamada koowaad waa law of cause and effect waa burhaan caqliya oo bini aadamku wada rumaysan yahay sida awgeed cid rumaysan waxbaa iska dhaca iyadoo wax sababay aanay jirin ma jirto dunida ma dhici karto waxay yidhaahdaan xataa saaxirku kuwa ku jeesjeesaa cid tidhaahda meelaan waxba jirin baan wax ka ahaysiiyey saaxiruun baynu aragnaa soo maaha saaxir baa tiyaatarkiisa soo taagaa koofiyaddu soo rogaa oo waxbuu akhriyaa dabeetana bakaylo yar buu halkan dhigaa saxankaa maaha waxay dhahaan xataa saaxirku hadduu rabo inuu sixirka sameeyo there should be waa in saaxir iyo koofiyad iyo intan lahay haddii kale bakaylo ma yimaadeen soo maaha haddaan saaxirka iyo maxaa la yidhaha koofiyadda iyo waxaan ismarmarinaya haddaanu haynin triggaasi wuxuu doonaya baa ku salaysnaado haddaan intani joogin suurtagal ma aha inuu yidhaahdo bakayla meesha yimi premiseskaasi ama qaacidadaasi bay yidhaahdaan daa'ifo yar oo mutashakikiin ah ayaa ka shakisan laakiin bini aadamka inta ugu badan way ogolyihin david hume iyo midhadh la mid ah waa qolada aynu leenahay dadyaga qaarkood oo kuba doodaya salipalisa miyay yidhahdaan wixii aniga iga baxsani ma jiraan mise ma jiraan يعني waxay ka shakisan yihiin ba caqliga bini aadamka iyo badihiyaadkiisa inuu wax fahmi karo inuu wax fahmi karo qoladaasi maaha group wax badan la isku dawakhiyo qaanuunkaasi law of cause and effect waa qaanuun badihiya baynu leenahay waa axiomisku ka mid yahay waa waxyaabaha evidence aan u baahnayn ama proof aan u baahnayn waa waxyaabaha caqliga bini aadamka sida dhaba u rumaysan yahay haddaad computerkaasoo halkaa yaalay aad hadhow u timaado isagoo halkaa yaala iyadoon ku odhan in cid baa qaaday yaa qaaday baad isweydiinaysaa uun miyaad rumaysanaysaa bahalkunbaa halkan unbuu iska ahaada maya haddaad aragto geed halkaa ka baxay waxaad rumaysantahay in iniin lagu riday uun midhihiisa inuu ka soo baxay ciidunba geed iska noqotay wax rumaysani ma jiraan idan premiseskaa hore aan sheegayo waxa uu tilmaamayaa iyagu waxay yidhaahdaan qolada falsafadu waxay daliishadaan markay muqadamadaa joogaan iyadu waa muqadamo caqliya muqadamada labaad baan ujeedaa muqadamada labaad waxa weeyaan dunidu waa xaadis ama mar bay bilaabantay ama waa la abuuray ama mar bay samaysantay markaynu sidaan idhaahna macnaheedu waa maxay waa qadiya nadariya bay leeyihin qadiya nadariya qadiya nadariya waa maxay waa qadiya u baahan tadliil waa qadiya u baahan maxay reasoning waa inaad reason garaysaa premiseska labaad isagoo acceptable maaha in la reason gareeyo mooyaane ka hore isagu sidiisu rationalku iyo lagu qaadanaya laakiin premiseska labaadi wuxuu u baahan yahay in daliil la keeno maxaa caddaynaya inay dunidu mar bilaabantay waa halkaynu isku haynay iyagu waa kuwii lahaa maxay eternity bahashani weligeed bay soo jirtay filosofkii Jelenius la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay dunidu inay weligeed soo jirtay waxaa kuugu daliila buu isagu leeyahay cadceedan weligeed baa la arkay halkaa unbay ka soo baxaysay halkaana way ka dhacaysay no change waxba isma bedelin dayaxan halkaa unbuu ka soo baxay halkaana ka dhacay no change waxba isma bedelin waa intaan dee saynisku tatawurin laakiin waktigaaba isagoo uu jawaabayo imaam al-Ghazali buu wuxuu lahaa inay isbedel ku dhacay inaan isbedel ku dhicin الذبول ليس شرطا لازما بو يدي كي هورا وحو يدي cadceeddu hadduu isbedel ku socdo waxaynu arki lahay iyadoo sii gamaarayso
dimar iyadoo noqonaysa dee sii madoobaanaysa madoo kolba maalinta ka dambaysa faynusku isagoo sii baktinaya ayaynu arki lahayn laakiin weligeed siday u caddayd umay u cadday buu tilmaamayay Ghazali wuxuu leeyahay shaygu markuu dhimanayo sharti maaha inuu soo dhinto shartigaaga aad laazimka ka dhigtay baan philosophically laazim ahayn buu leeyahay inuu soo madoobaado sharti maaha mar qulu bug wada odhan karaa idan in la yidhaahdo weliga ayaanu arkayno way iska may soo baktinin sharti maaha buu leeyahay one time bay baktiyi kartaa maanta si waxaa looga inay sii baktiyayso oo بلايين يعني millions of tons of energy by daily sii daysaa energy-guna waa maxay waa matter la dhalaaliyey ama si kale haddaan u tilmaamo hydrogen atoms bay waxay u bedeshaa maxay helium atoms dabeetana energy bayna siisaa idan helium atomsku waa aashkii waa xabada marka la gubo dambaskii ka hadhay beri horeynu arki lahayn iyadoo wada dambasa hadday weligeed soo jirtay maanta scientifically bay proofed tahay inay sii dhimanayso laakiin waqtigaa may jirin adilo science ay caddayn karaan laakiin wuxuu la isticmaalaya adilla caqliya dabeetana wuxuu lahaa imaam al-Ghazali sharti maaha inay sii baktideen mar quraba way wada dhiman kartaa daliilkan haddaba imaam al-Ghazali isagu laba shay buu daliishanayaa masale falsafiya iyo masale xisaab riyaadiyaat مسألة فلسفية نوحو ليهي waxay ku tilmaamaan التسلسل والدور ممتنع bay yiraahdaan tasalsulku waxa weeyaan in la yiraahdo si mala nihaaya infinity kan ba kana abuuray kana kan buu si 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 abuuray up to infinity in mathematics infinity waxa la yiraahdaa jira laakiin real world ka infinity waxa la yiraahdaa kama jiro Dr. Gilbert theory-giisa wada maqasheen baan filayaa Dingle Gilbert theory-gii hotelka sheegayay yani martaa hotel la soo dejiyay infinity dabeetana hotelku wuu wada buuxaa infinity buu buuxaa markaasaa marti kale ku timi oo infinity weli boos waa loo heli karaa buu leeyahay mathematics wax la oran karaa idinku waxaad degtaan odd numberska 1 3 5 waa infinity even number kun baneeya way soo galeen kuwa kalena idan wuxuu leeyahay real world ka wax ka jira maaha ala kulli xaal inaan idin si mashquuliyo ma rabo soo duduba waxaan leenahay at-tasalsul wa duurkuna waa annaka baan abuuray isna isaga abuuray ama ana is abuuray labadaasi philosophically in logics waa mumtanic bay dhahdaan suurtagal maaha therefore waa inuu jiraa cid abuurtay warkaasoo dhan markaynu soo duuduubno waa daliil caqli iyo philosophy oo isticmaalayeen dadkii hore culamadan casrigii waxay leeyihiin mas'alada tan sayniska uu hiiliyey bay leeyihiin premiseska koowaad ee law and cause and effect loogu isagu waa qadiya caqliya la wada rumaysan yahay premiseska labaad ee sheegaya dunidani inay timi ayay waxay leeyihiin scientifically proved inay dunidu timi hadda waa qadiyad saxiixa oo weligeed may soo jirin ee waa maxay jiritaankeedu marbuu bilaabma oo waa maxay taa macnaheedu waxay tilmaamayaan malaaxidadu iyagu waxayna leeyihiin dunidani waa eternity weligeed bay soo jirtay waa kii lahaa maxaa la yidhaahdaa Bertrand Russell kii filosofkii ingiriisku the universe is just there and that's all buu yidhi dunidu way jirtaa warkuna intaas ugu dhayin weligeed baanay soo jirtay waa masalada marka muranka keentay waxaan leenahay haddaba sayniska maanta joogaa wuxuu sugayaa laba shay universe inaanu eternity ahayn inaanu azali ahayn inaanu weligii soo jirin iyo universe inuu min cadam from nothingness inuu ka yimi
from nothingness cadam inuu ka yimi labadaas see loo sugayaa iyagu saynis yahanadu qaar ka mid maalan dr frank allen 40 sano nin professor ahay oo maxaa la yidhahdaa canadiana wuxuu leeyahay su-aasha haddaynu isweydiino dunida ayaa abuuray 4 probability unbaaba jira buu leeyahay probability afraad ma dhici karo waa inay dhahno duniyaba ma jirta innaga riyoonayna waa khayaal iyo inaynu dhahno maxay way timi oo waa xaadith iyo inaynu dhahno maxay waa azali weligeed bay soo jirtay iyo inaynu dhahno iyadaa isa samaysay logically afartaa waxaan ahay inuu lagu jawaabi karaa ma jirta buu leeyahy jawaab shanaad qof bini aadami ma keeni karo afarta jawaabood buu isagu waqtigiisii odhanayaa labo wax badan uma baahna buu leeyahy midka ah waa khayaal iyada shucuurka dareenka consciousnesska inagaga filan buu leeyahy inaynu wax dareemayno oo wax kala jiraan iyada kaa wax badan waqti badan ku lumin maayo buu leeyahy midka sheegaya buu way iska ahaatayna inooguma jirta buu leeyahy scientifically waxaynu rumayn karno inkastoo uu iminka yahay wax badan ay rumaysan yihiin waan dib ugu noqon doono laba mas'aluun weeyaan buu yidhi waxa soo hadhayba waa inaan idhaahno dunidani waa la abuurayo mar bay timi oo ilaah azaliyo isagu khaaliqo weligii soo jira abuuray iyo ma ahee iyadaa azaliya waa intaa unbaa buu leeyahy haddaba haddii aan burin karna buu leeyahy iyadaa azaliya haddaan burinno jawaab soo hadhay ma jirta buu leeyahy inaan idhaahno khaaliq abuuray bay leedahay mooyaane jawaab kaloo soo hadhay ma jirto haddii aan premiseska ah eternityga haddaan dubinna buu leeyahy oo scientifically la disprove gareeyo jawaab kaloo soo hadhay ma jirta buu leeyahy in la yidhaahdo maxay creation waa la abuuray in la yidhaahdo mooyaane jawaab kale ma laha buu leeyahy inaanay weligeed jirin thermodynamic law baa inoo sharxaya buu leeyahy culamo badan oo maanta saynis yahana iyo kuwa horeba qaanuunkaasi aad bay u daliishadaan second law of thermodynamics qaanuunu carno second law of thermodynamics muxuu sheegay waa xasuusta maleedi qodobadii newton second law of thermodynamics si fudud haddaan u tilmaamo wuxuu sheegayaa energy-gu ka soo qaad kulaylku inuu shayga kulul ka yimaado oo qabto maxay shayga qabow ilaa iyo ay gaadho maxay ay sinmaan socanka maaha haddaan kuwa biyo 100 degree halkaa dhigo oo muddo uu joogo muxuu noqonayaa akhirka room temperature buu yeelanayaa dee socanka maaha marka waxaynu haynaa energy-gu inuu u socdo ka kulul inuu ka yimaado uu qabto maxay ka qabow cagsiga miyuu u socdaa maya yani laba shay oo midna 50 degree iyo midna 75 degree yahay kan 50kiisa degree miyaan ku biirin karnaa kan si uu noqdo kan 120 degree kana 0 degree uu yimaado maya xagga kale u socon kartaa second law of thermodynamics markaa wuxuu sheegayaa useful energy-ga waxay yidhaahdaan ama jiritaanku in anthropy-gu ku bato yacni useful energy-gu inuu yimaado maalan wax kasta inay gaboobaan buu sheegayaa maalan gaadhaad halkaa dhigtay waad iska daysay muddo markuu yaallo maxaa ku dhacaya disorder wuu sii xumaanaya marka time-ku bay leeyihiin waa wax keena maxay disorder inuu shayga ku dhaco inuu shaygu sii daalo second law of thermodynamics wuxuu sheegayaa buu leeyahy dunidani hadday weligeed soo jirtay oo timekii maanta wixii ka horreeyay hadduu forever ahaan lahaa maynan soo gaadhneen nolol dhammaanteedba ama
waxay ku tilmaamaan mowt xaraariya mowt alxaraari thermodeath ayuu gaadhi lahaa mowt xaraarigu waa maxay yani waxa weeyaan cadceedda dhulka xidigaha waxaan oo dhami temperaturekoodu wuu sinaan lahaa nololina ma jirteen maadaama ay weli kala kulushahay oo xidigo kulul cadceed kulul iyo kuwo qabooba ay jiraan macnaheedu maxay sheegaysaa still inay cadceeddu energy-na siinayso socanka maaha inna waxaan sheegayaa ma idiin muuqanayaan يعني عدعاد مثلا عدعاد ولا صوغ هدي ولقيت سو جرتي مينن سو غادنين دي way maran lahayd ilan time kaad qaadatay waxa weeyaan time ama xay infinity time abadiya time waligi soo jirtay haday waligeed soo jirtay aynu ognahayna hydrogen atomiskeedu inta fusion uu ka dhaco inay noqoto maxay helium atoms waxaynu maanta cadceedu waa inay wada ahaan lahayd maxay wada helium waxaan leenahay haddii dunidu weligeed soo jirtay maanta shay kulul iyo shay qaboobay waa inaanu dunida kor oolaadeen universe-ko dhamme waa inuu noqon lahaa maxay the same temperature maadaama universe-ku uu yahay different temperature uu jiro macnaheedu waxa weeyaan still time is going weli waqti dhoweyd bay soo bilaabanto waa tan weli kulul yacni koob iyo kulul haddaan halkan dhigo oo aad soo noqoto timaadid inta waxa soo noqdo aad u timaadid koob iyo kulul halka yaala maxaad garanaysaa in mar dhaweyd la dhigay soo maaha miyaad rumaysanaysaa 50 sanadood buu halka yaalay koobka biyo kulul waayo waxaad leedahay second law of thermodynamics baa wuxuu sheegayaa hadduu 50 sanadood yaalay inuu room temperature ka yeesho saaka maaha haddii ba aynu arkayna bay leeyihiin dunidoo shay kululiba dhex yaallo xidig cadceed wuxuu doonayaba ha noqdo dunidoo shay kululi yaalla haddaynu arkayno waxay daliil u tahay inay waqti soo bilaabantay inaanay weligeed jirin hadday forever jirtay waxay noqon lahayd koobkaa biyaha aynu leenahay hadduu 50 sanadood jiro maxay wuu dhiman lahaa room temperature buu noqon lahaa it should die waa inay mowt xaraari ku dhacdaa saa daraaddeed waxay leeyihin second law of thermodynamics wuxuu sheegayaa dunidada ama universe-ku inaanu azali ahayn inaanu weligii soo jirin waayo still waxaynu haynaa chemical compounds dhacaya waa physics qaanuun physics iyo qaanuun chemistry iyo wax oo dhan iyo qaanuun biology midna ma jireen haddaanu jirin maxay kulayl haddaanu jirin midna ma jireen waxay kaloo daliishadeen oo labaad dunidu marka laga soo bilaabo physics yahanadu in badan masaa'ilka qaarkood way iska indhamari jireen 19th century-gu markii uu dhammaaday la soo gaadhay waqtigan la yidhaahdo 20th century-ga bilowgiisii 20th century-ga bilowgiisii saynis yahanada in badan oo ka midi waxay iska rumaysnaayeen dunidu inay tahay eternity inay weligeed soo jirtay steady state inay ku jirto ayay in badan oo ka midi rumaysnaayeen waxaynu naqaanaa 1905 iyo 1915kii inuu Albert Einstein ninkii la odhan jiray keenay labadiisii theory ee ahaa general relativity iyo special relativity labadiisa theory ee ninkani keenay Albert Einstein la yidhaahdo waxaynu naqaanaa inay ka soo horjeedeen ama si kale aynu nidhaahno inay extension u ahaayeen Newtonic laws-kii la yaqaanay Newton qawaaniintii uu ka tegey Newton motion Newton gravity Newton qawaaniin buu ka tegey waxaan naqaanaa classical mechanics waxay yidhaahdaan wuxuu shaqeeyaa marka aanu speedku xoog u dheeraynin hadduu speedku xoog u dheeraynayo waxa la isticmaalaa maxay waa laga tagaa Newton laws-kii waxa la qabtaa maxay special relativity is equal to mc square kini haddii shaygu uu size-kiisu aad u yar yahay oo atomka iyo gudihiisa waxa ka yar u noqdo waa laga tagaa Newton gravity law-giisa iyo wixiisa oo dhan waxa la qabtaa maxay quantum mechanics hadduu shaygu aad u weyn yahay oo universe-ko kale yahay Newton laws waa laga tagaa waxa la qabtaa maxay general relativity in physics
kow general relativity-gu wuxuu sheegayay calculation-kiisii markuu sameeyey yacni waa gravity-ga u dhexeeya ajraamtan samaawiga waaweyn cadceedda dayaxyada galaxies-ka waxa kanisay soo hayaan iyo gravitational force-ka u dhexeeya calculation-kiisii markuu sameeyey ee uu aragtidan soo saaray Albert Einstein 1915 markii uu طبقay waxa uu muuqatay inaanay dunidu static ahayn wax taagan inaanay ahayn calculation-ka waxa ka soo baxay dunidu ama way yaraanaysaa ama way ballaaranaysaa waa labada midoon maba taagnaan karto community-ga science-kuna masalada ma rumaysna dunidu inay static tahay universe-ku in jirta inuu yahay bes mana yaraanayo mana weynaanayo waa static waana eternity ayay rumaysnaayeen calculationiskii Einstein-na waxay sheegeen bahashu inay ama yaraanayso ama weynaanayso dabeetana Einstein wuxuu bilaabay waxa uu yaqaaneen Fudge constant sallaxashaysan buu ku sameeyey maxaa la yidhahdaa qaacidadiisii physics-ka ahaydoo shay constant buu ku daray oo mathematical equation-ka ku ilaalinayo oo ka dhigaya inay noqoto marka constant thabit kowniga ama constant marka la isticmaalo inuu noqdo qaacidadu mathematically inaan equation-ku isbedelin laakiin qaacidada physics-kii way faaftay wiil dhalinyaro dhowr iyo 20 jir ah oo Alexander Friedman la yidhaahdo Russian ayaa qaatay fikraddii Einstein calculationiskiisii yacni qaacidadii general relativity-gii buu qaaday dib buu universe-ka iyo qadaayaadkiisii u calculate gareeyey wuxuu soo saaray inaanay dunidu taagnayne inay expansion inuu jiro wuxuu leeyahay saana sax maaha ama waa inay expand garoobaysaa ama waa inay maxay yaraanaysaa weliba buu leeyahay wax yar haddii lagu daro dunidu siday tahay way isbedelaysaa socodkeedu wuu isbedelayaa Albert Einstein markii loo sheegay masaladaasi muu aqbalin dee saynisyahanadii kalena ma aqbalayaan qaacidadiisii baa lagu dabaqotaana wuu diiday it's suspicious buu ku jawaabay waa qadiya muriiba shaka ku jira saad wuxuu xisaabisay yani kaanama inanka calculation-kiisu aanu saxayn waa 1922 haddana 1927 ayaa nin kale oo physician ah physics-ka culamada physics-ka ka mid ah ayaa wuxuu calculation sameeyey waa George Lamartine waa saynisyahan Belgium ah isla markaana wadaad ah waa wadaad Kristan ah oo culamada Christianity-ga ka mid ah aqoonyahan cilmiyeedna ah calculation-kii buu dib u sameeyey 1927 dabeetana waxa u soo baxay the universe is expanding buu yidhi dunidu way ballaaranaysaa suurtagal maaha universe-ku wuu ballaaranayaa Albert Einstein baa loo sheegay qadiyadii wuxuu yidhi waa maqiit waxaad sheegaysaan wuxuu ku sheegay inay abominable inay tahay yani inay maqiit tahay wax fiican inaan ahayn wuxuu ka warramayo siiba ninka kan maadaama loo arkayay wadaad fikrad diineed iyo waxbaa laga uriyey unoo saynisyahanadu aada ugumay dheg taagin 1929 ayaa haddana qadiyad cusub soo korodhay 1929 Edwin Hubble waa astronomer caan ah oo Maraykan ah waa astronomerka in badan astronomy-ga ka dhigay wax empirical science ah inuu noqdo wax science labka uu xidhiidha leeyahay marka Maraykanka waxay ka sameeyeen meel California ku taala ayaa waxa laga sameeyay Mount Wilson buur la yiraahdo waxa la dhigay telescope-kii markaa dunida ugu weynaa telescope-ka khubarada wax ku bidhaamisa eegta ninkan baa ka mid ahaa ninkan la yiraahdo Edwin Hubble ku soo maydan maqaal maxaa la yiraahdaa dayax gacmeedka baalkan cirka jooga
هابل تلسكوب كسوما مغشان ويعني إن كان احتراما له بمجلس لو بحيه كان إدوين هابل كواكا إدوين هابل cirkii iyo dayaxyadii wixii uu eegayay waxa uga soo baxday waxay yiraahdaan red shift alizaaxa alxamraa red shiftku waa mas'ale sheegaysa waxaynu naqaanaa iftiinka lightka marka spectrumka loo dhigo maxaa muuqda colors soo maaha sidiisaba mawjaadka waveska waxaynu aragnaayo quro inagu visible ah in aad u yar 400 nanometer ilaa 700 nanometer ama exactly 380 nanometers ilaa inta laga gaadhay 700 nanometers ayaa visible waveska inta ka sareeya ama ka hooseeya ma muuqdaan oo dhankan blue iyo violet ka waxa ka sii hooseeya maxay ultraviolet rayska x-rayga gamma rayska waxa soo dhamay ma aha maxay visible maaha dhanka kalena infrared rayska microwave-ka radio waveska oo FM iyo AM iyo waxaanaynu sheegnaa long radio waveska kale waxa soo dhamina waxay ka sareeyaan maxay redka idan inaga isha bini aadamku inta aragtaa waa in yar waa inta yar ee u dhaxaysa nanometerskaasi ah 380 nanometer meter loo qaybiyay maxay nano oo soo garan maysaan nanometerka inta leeg baynu aragnaayo qura haddaba colorka oo la baadho ifkaas oo la baadho waxaa laga dhex helay fikrad odhanaysa inuu shaygu lightkaasi uu ka yimi inuu kugu soo socdo iyo inuu kaasii socdaba laga fahmi karaa iyo inuu static iyo uu taagan yahay shaygii ifkiisu ku soo gaadho marka spectrumka loo dhigo waxaa la garan karaa shaygaasi inuu movable yahay ama ha sii socdo ama ha soo socdo iyo inuu taagan yahay waa la garan karaa xagee laga garan karaa wavelengthka isbedelaya wavelengthka isbedelaya waa kee يعني هدو كوكو سو سعودنا wavelengthska bluega badanaya waayo bluegu frequency-ga ka dheeraynaya saa daraadeed blue colorku sideedaba waxaana maqashaan waxba waves iyo midaba iyo waxa kani waa wavelengthka iyo frequency-ga difference-ka u dhaxeeya unba keenaba midabkan aad casaan iyo madow waxaad sheegayso dhimo waa intaan markuu frequency-gu inta gaadhana blue bay ishaadu kugu sheegaysaa markuu inta gaadhana casaan bay kugu sheegaysaa markuu inta gaadhana midabkaas ay kugu sheegaysaa hadduu markaa shaygu soo socdo iftiinku wuxuu u badanayaa xagga bluega soo badanaya hadduu kaasii socdana maxaa badanaya xagga casaanka yani wavelengthkii baa sii kala baxaya waayo wavelengthka redku wuu ka dheer yahay kaas tusaale kale gaadhigu markuu soo socdo iyo markuu sii socdo ma kala garanaysaa dad guuxa tareenkaad maqashay tareenku inuu kugu soo ordayay inuu kaasii ordayay maxaad ku garanaysaa guuxa maxaa ku dhacaya muxuu yahay wuu soo dhawaanayay iyo wuu sii socdaa yani waxa weeyaan tareenku markuu halkaa joogay hadduu xaggaa u sii socdo wave-ku soo diray wuu ka dheer yahay kii hore markuu soo diray midba ka dambeeyuu kasii dheeriyay marka hadduu sii yidhaahdo waxaad garanaysaa maxay inuu kaasii socdo haddii wavelengthku uu soo yaraado macnaheedu waxa weeyaan frequency-gaa sii badanaya macnaheedu waxa weeyaan codkii hore halkuu ka soo diray marka dambe meel ka dhow buu ka soo diraya marka ku xigta meel ka dhow buu ka soo diraya marka dhegtaada frequency-gu wuxuu ugu soo dhacayaa mawjaadku si ka badan siday markii hore ugu soo dhacaysay markuu sii socdana si gaabisay dhegtaada ugu soo dhacaysaa marka waxaad leedahay shaygii wuu sii socdaa waayo codku wuu sii diniiqaya wavelengthka ku soo gaadhaya stretched buu noqonaya wuu sii kala baxaya habal fikraddiisana waxay keentay markaa wuxuu leeyahay galaxieskan iyo xidigahan iyo waxaan inoo muuqda qaar badan oo ka mid ah baa sii casaanaya oo marka spectrumka la saaray wavelengthku xagga casaanka u badanaya hadduu xagga casaanka u bato maxaynu dhig weeyaan way sii socdaa dabeetana wuu sii baadhay wuxuu yidhi iyaguna way sii kala cararayaan fikrad cusub baa markaa dunida timid
Einstein wuxuu diidanaaye uu fudge constant-ka u samaystay waxaa la yidhi waxba kama jiraan. Albert Einstein markuu ninkaa maqal labadii hore wuu diiday inuu nidhi wuxuu diiday maxay Friedman Alexander iyo ninkii la odhan jiray George Lamartine Belgium ka ahaa iyo ninkii Russian ka ahaa markuu maqlay qadiyadda tan Albert Einstein wuu safray wuxuu tagay Mount Wilson wuxuu tagay Hubble wuxuu hubiyey waxaanu sheegaya Hubble-ku inuu sax yahay wuxuu arkay dabeetana wuu calaacalo wuxuu yidhi khata iyo cilmiga ugu weynaaye weligay aan galo waa bahasha arinta yar ku salaxay buu yidhi Albert Einstein kii la lahaa waa caqligii physics-ka ugu weynaaye qarniganba soo maray ama taariikhda waxay dhahaan waa physics-yahanka ugu weyna soo maray Albert Einstein markaasuu wuxuu qiray qadiyadan inay jirto laakiin qolo kale ay mari weyday siiba malaaxidadii waayo haddaad tidhaahdo dunidu way sii ballaadhanaysaa haddaad tidhaahdo ninkan George Lamartine la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay Primevol wax la yidhaahdo wuxuu leeyahay atomkii koowaad ee dunidu ka baxday hadday iminka sii socoto filimka haddii dib loo eriyo maxaa dhaca yani filimku markaad saan u daawatay haddaad dib u erido shariidka halkii aad ka tagtaa tegaysaa soo maaha dunidu way iminka waxa la qaatay inay sii ballaadhanayso saxiixa maaha haddaynu shalay intay leekeed markaa way ka yarayd intay maanta leegtay doraad intay leekayd way ka yarayd intay shalay leekayd maalintii ka hor sanadkii ka horreeyay intay leekayd way ka yarayd sanadkii hore idan waxa la tagayaa bay leeyihiin waqti ay maxay noqoto just like an atom bay leeyihiin less than an atom singularity waxay physics-ka ku yidhaahdaan singularity-gu waa meel aan qaanuunka physics-ku shaqaynin waa blank dimensions baa la dhaafay Max Planck soo dimensions laynooma dhigi jirin la yidhaahdo surcada ugu yar ee la arki karo distance-ka ugu yar ee la measure garayn karo time-ka ugu yar ee la measure garayn karo everything waxa ugu yar wuxuu dhaafayaa bay leeyihiin all physics loo marka halkaa la gaadho waa stagnant qaanuun ma jiro meel bila qaanuun ay tegaysaa tacbiir kale waxay yidhahdaan nothingness bay tegaysaa haddaba waxaa soo kordhay fikrad odhanaysa dunidu inaanay static ahayn Edwin Hubble fikradda markuu keenay oday Ingiriis oo mulxida diiday oo yidhi dunidu yes expansion-ku wuu jiraa laakiin markastoo ay ballaadhato wax kala ka dhex samaysmayo way samaysmaysaa way buuxsamaysaa ma space-ku isma dhimayo wax material-ku isma dhimayo material cusub baa samaysmaya xidiga cusub baa samaysmaya wax walba cusub Fred Hoyle oday la yidhaahdo oo mulxid ahaa oo Ingiriis oo fiisiyaanada ugu roon ka mid ah ayaa fikradda qaatay waliba group kalena way u taageereen mulxidoo dhamma waxay dhahaan haddaynu aqbalno dunidu inay mar samaysantay oo inta dib u celino dhaana mar bay samaysantay de waa creation baynu aqbalnay ilaah baa abuuray markaas bay tagaysaa si aan taasi u dhicin waa in la yidhaahdaa maya weligeed ba ha sii ballaadhatee haddana hoosdun baa bob-ups kale ka baxayeenoo way staanun bay ahayd ee maray yarayd ma jirto bob-upkani markuu soo baxun bay sii ballaadhanaysa laakiin maray yarayd ma jirto fikradda waa steady state-ka waxay yidhaahdaan steady state-ka markuu fikraddaasi keenay qolo kala taageertay oo waxaa la yidhi Edwin Hubble calculationskiisa meelaa qaldamay oo isagu markuu calculate gareeyay wuxuu soo saaray inay 1.8 billion years universe ku jiro 1.8 billion years inuu universe ku jiro qoladii geology-ga waxay yidhaahdeen maya rockskan markaanu eegnay waxaan markaanu eegnay more than 4 billion years dhulkaaba jire maxaad universe-ka sheegaysaa dhulkaaba wuxuu jiraa inkastoo dee muran badani uu ka jiro billion yearskan sida loo xisaabiyo 300 oo system baa jira wax lagu xisaabiyo waa difference badan iyo muramo badan baa ka jira haddaad u baahantahay professorka Molin la yidhaahdo website buu leeyahay ee Swedishka ka kaalay antooda raacno waxaa iska hor imaatin nooca baa yimi markaas saynisyahanna waaweyn waxay weli iskaga qanacsan yihiin steady state-keeda inay tahay oo uu ka mid yahay odaygii nin Ingiriis la odhan jiray Sir James Jenis The Mysterious World buuggiisa markuu qorayay hadihi الفكرة buu ayuu waday laakiin dunidu halkii ma joogin
inay dunidu sii ballaadhanayso macnaheedu waxa weeyaan inay maalin ay yaree jirto. George Lamartine wuxuu u bixiyey maalintii ay bilowga ahayd the day without yesterday buu u bixiyey. The day without yesterday. maalin aan yesterday lahayn baa dunida jirtay buu leeyahay. maalin ay maalintuba bilaabantay. waayo haddaad tidhaahdo way sii yaraato waxa kan waxayna leeyihiin timeka iyo spaceka iyo materialka matterka iyo energyga afartuba mar bay wada bilaabmeen bay leeyihiin. Before that there's no time, no space, no waxaas oo dhan ma jiraan. waxaa bilaabantay markaa in la theorize gareeyo fikraddan la yidhahdo big bang. maanta waxa maqashaan fikrad la yidhahdo maxay? big bang model. big bang Fred Hoylekan baa uu bixiyey isagoo dacaayadeynaya. Fred Hoylekan baa waxay ka wareysteen baa la yidhaha BBC London. dabeetana markuu labada aragtiyood sharxayay tiisa iyo toqolada kale oo uu tiisa xoojinayo ayuu wuxuu leeyahay waxay ina leeyihiin kuwan kale something unbaa big bang sameeyey. ereyga maalintaasaa la qabatay oo loo bixiyey theoryga la yidhaahdo ninkan uu sheegay big bang loo bixiyo alinfijaar alcadiim aw alinfijaar alacdam. 1948kii ayaa arday Ralph Alpher la yidhaahdo oo PhD student ah oo George Gamow nin la yidhaahdo oo ardaya iyo qoladaasina predictions bay sameeyeen sheegaya dunidu inay expansion samaysay mar waxa kani qarxeen inay jirto. haddii qaraxaasi uu run yahay waa in la helaa waves microwave ah oo around 5 waxa inkaas ay ku qiyaaseen baan filayaa iyagu 5 Kelvin temperature waa in la helaa. fikraddii in badan may sii soconin. waqti kadib 1964 ayaa shirkaddan la yidhaahdo Bell Telecommunications ee Maraykan shirkadii ugu horreeyay telecommunicationka dunida laba saynis yahano oo aqoon-yahanadeeda ka mid ah ayaa waxay raadinayeen inay satellite telecommunicationada inay waxaan markii la samayn doono sidii loo qaban lahaa codkaas iyo waxaasi oo saafiya. dabeetana waxay sameeyeen maxaa la yidhahdaa anteenadu waa dhishkan weyne ay isticmaalaan qoladan telecommunicationka. horn antenna waxa la yidhahdo ay sameeyeen. horn anteenadu waa anteeno dheer oo gees oo kale u samaysan oo loogu talagalay raysiska ama waveska xagga sare ka imanaya radio waveska xagga sare ka imanaya inay qabtaan. nimankani waxoodii markay dhisteen ay sameeyeen ayaa screenkii tashuush buu ka bixi waayey. screenkooda waxa ka muuqanaya uun tashuush. waxay isku dayeen inay tashuushkan joojiyaan laakiin way u taag waayeen. habeennimay sameeyaan waa jiraa, maalinimay sameeyaan waa jiraa, xaggaasay u jeediyaan bari galbeed koonfur dhankaa doonto u jeedi tashuushkii waa la hayaa. waxay is idhahdeen malaa waa waayiradiina electrigii baa dib loogu noqday waa la hagaajiyey waa la sameeyey waa screenkii weli tashuushkii buu hayaa. way aqbali kari waayeen. dabeetana markii dambe yidhaha war babasha gudaheeda aan baadhno xamaam baa lagu arkay. dabeetana waxay dhahdeen war waa bigoniskan waa xamaamkan baa waxaan sameeyey. xamaamkii baa la qaaday waxay dhahdeen meel baa la geeyey waxoodii bay wadeen haddana uu soo duulo dib uu galay mar kale ay ururiyeen waaba laayeen xamaamkii waa la dilay. maca xamaamkii tashuushkii waa la joojin kari waayey. meeluu ka imanayana waa la garan waayey. kadib ayay waxay maqleen Princeton University qolo physics yahanaha oo raadinayo le big banku markuu dhacay ismowgii qiiqii ka dhashay wavelengthkiisii ka hadhay waa inay jirtaa microwave la qiyaasi karo maanta haddii uu sax yahay bahalkaasi. nimankii ka mid oo la xidhiidheen qadiyaddii baa la isla eegay. waxaa la rumaystay inuu yahay waxaan tashuushka samaynayey big banku markuu dhacay microwave radioskii ka hadhay. microwave radiogu waa kan
bahashana marka microwave kana tiraahdaa waxba lagu kulayliyaa waa kala isticmaalo ama si kale marka TV-ga shidid soma bigbigleeyo bigbigta 10% ka mid waa microwave-ka kan waxay leeyihiin wuxuu ka hadhay kownku markii la sameeyay big bang-gaasi dhacay qiiqii ka dhashay nin waalan mahiye wuxuu diiwaan sheegayaa qiiqii ka dhashay markuu stretch ku dhacay la kala fogeeyay wavelength-kaasi waa inuu leegyahay bay yidhaahdaan intaa dabeetana waxa ay tijaabiyaanba waa la qiyaasay waxaa lagu qiyaasay around 3 Kelvin 3 Kelvin waa imisa waa -270 degree يعني absolute zero-gii inuu 3 ka sareeyo nimankan markay maraysay 1978 ayaa Arno Benzies iyo Robert Wilson Nobel Prize Physics lagu siiyay inay noqdeen nimankii koowaad ee sheega bahashaasi mar labaad 1989 baa la yidhi waxa kan bal inteenan un baynu ogaanay meel kasta waayo hadduu wave-kani meel gaara ka yimi dee waxay ahaan lahayd meel gaar marka meelaha kale loo jiheeyo inaan jiro meel kastoo kownka ka mid oo la taga bay leeyihin waxani uu joogaa that means qaraxani mar quruu dhacay marka kownka meel kastoo ka mid ah waa in laga helaa hadduu theory-gaasi sax yahay bay yidhaahdeen anywhere dunida la tago universe-ka meel kastoo laga tago waa in la helaa microwave-ka temperature-ka caynkaasiya leh maraykanka wuxuu diray cosmic background explorer satellite buu diray satellite-ka missionska loo diray waxaa ka mid ah inuu microwave-ka soo xaqiijiyo 8 minutes ba markuu sii socday wuxuu sheegay 2.7 in everywhere uu tagay inuu yahay 8 minute gudahood dabeetana 2006kii ayaa mar labaad waxaa Nobel Prize-kii physics-ka la siiyey John Matter iyo John Smoot oo lagu siiyey inay dunidu barbilow leedahay big bang-na uu dhacay waa kii labaad ee ku qaata Nobel Prize haddana mar saddexaad baa Nobel Prize lagu qaatay 2011 ayaa haddana supernova-dii ay sheegayeen xaggan sare ka dhacday markay baadhbaadhayeen ayaa 3 nin Saul Perlmutter nin la yidhaahdo oo Nobel Prize-ka half la siiyey iyo 2 kaloo half la isku siiyey Bren Schmidt iyo Adam Rice iyagana waxaa lagu siiyey expansion-ka acceleration-kiisii bay iyana xisaabiyeen dunidu intay expand garoobayso acceleration-keeda bay xisaabiyeen masaladani soo duuduub markii hore waxaan idiin sheegay Imaam al-Ghazali iyo falasafadii oo qadiyadda tan rabta inay philosophically u caddeeyaan laba premises iyo natiijaan sheegay soo ma ahayn labada premises Maxamed muxuu ahaa wax kasta oo barbilow leh inuu leeyahay wax bilaabay soo ma aha waa law of cause and effect premises-ka labaadna muxuu ahaa universe-ku inuu mar bilaabmay natiijaduna maxay ahayd cid bilowday inay markaa jirto ilaah abuuray creation inuu jiro universe-ku mar buu bilaabmay waxaynu soo tilmaamnay philosophers-ku waxay adeegsadeen oo Imaam al-Ghazali aragtidiisii laakiin waxaynu leenahay systemka cusub ama science-ka cusub qadiyadii philosophically adkayd in la caddeeyo ama saddexdii philosophy ay yidhaahdaan duniday u weynaayeen ay caddayn kari waayeen oo maalan saddexda nin ee Aristotle iyo Plato iyo maxay kii kale Socrates saddexduba waxay rumaysnaayeen dunidan ilaah abuuray inuu jiro laakiin dunida xagee ka timi maxaa laga sameeyay diba ku adkaatay Aristotle wuxuu rumaystay fikradii la oran jiray hiyuligu waxaynu wax weeyaan waa maado aan shakil lahayn oo qadiima baa jirtay xataa qoladii cilmul kalaamka ee muslimiinta qaybo ka mid ah Aristotle iska raacay waxa sheegay Ibn Rushd iyo Ibn Baja iyo maxaa la yiraahdaa Ibn Sina iyo Farabi iyo koox badan oo kooxda ka mid ah aragtida ninkaasay ku tageen laba shay oo qadiim inay jiraan Allah iyo maxay tan ومسألة كقري الإمام الغزالي تهافت الفلاسفة تضبيه تبقى مسألة وكقال يسين أيوه مسألة القدم العالم بكمدة قدم العالم كاسمرك والرميه على كل
qidam alcaalam raggii ugu horreeyay diida shalay laba nin baan iskaga keen qaldnay Plotinus iyo John Philanopus. Plotinus waa Aflatoniya alxadiitha waxdat alwujuud ninkay suufiyadu ka soo qaadatay ay nidhi kownku ilaahay buu kasoo faydkay sheegayeen suufiyadu ka qaadatay waxdat alwujuudka aaminsanaa kaasi qarnigii saddexaad buu noolaa 205 buu dhashay meelahaasay yidhaahdaan 270 wuu dhintay laakiin ninkaan idin lahaa waa Iskandari Yohanna al-Iskandari ka la yidhaahdo oo barigii dambena kiniisadu qoladii thaaluthka diidanayd buu ka mid ahaa ee bugaagtiisa la diiday Yohanna thaalithka Iskandari labaduba Masar baanay ku dhasheen Yohanna thaalithkaas Yohanna al-Iskandarigaasi waa ninkii koowaad ee filosofara ee buriya ama se diida qadiyadda tan Aristotle rumaysnaaya qidam alcaalamka adduunku inuu weligii soo jiraya haddaba waxaan leenahay hadda waxay leeyihiin dunidu weligeed may soo jirin waayo second law of thermodynamics baa diidan baynu leenahay laba expansion kaa diidan baynu leenahay tamadud waa la isku waafaqsan yahay alizaaxa alxamraa red shift baynu sheegnay inay dunidu sii kala durkayso that means haddaynu dib u noqono taariikhda dib u noqono mar isku dhijisneed ama wax yar ahayd ayaa soo baxaya third waxaan leenahay big bang theory oo maanta standard modelka physicsku uu rumaysan yahay waan tilmaami doonaa ictiraadaadkooda iyo kuwa kale ay sheegaan laakiin standard modelku waa maxay waa big bang theory wuxuu sheegayaa dunidu inay mar bilaabantay from nothingna inay ka bilaabantay kadibna inay explosion dhacay explosionkaasi markuu dhacay tamadud expansion ayaa yimi expansionka waxa ku xigay bay leeyihiin cooling way qabowday coolingka waxa ku xiga kathafa densitygeedu inuu meelo batay oo ay galaxieskan iyo waxaan abuuran oo dhami samaysmeen waxaasoo dhan iminka waxay leeyihiin waa xaqaa'iq cilmiya ama big bang iyo saa loo sharxaya waa standard modelkay hadda haystaan laakiin kuwan kale aynu sheegaynaa iyagu waxay leeyihiin inay tawasuc uu jiro kownku uu tawasucayo oo dhulka qura maaha meesha laga tawasucaya everything it's like a balloon bay yidhaahdaan baaluunka marka la afuufo maxaa ku dhaca uu sii weynaadaa haddaynu dhibco baaluunka ku sawirro nidhaahno waa dayaxii xidigihii wixii oo dhan galaxieska aynu ku sawirro way sii kala durkayaan soomaha markuu bahalku durkaba everythingna ka kale wuu kasii durkaya idan waxaan leenahay qaanuun second law of thermodynamics wuxuu sheegaya inaanay dunidu asal hayn expansion theory wuxuu sheegaya inaanay dunidu asal hayn big bang oo uu markhaati u yahay maxaa la yidhaahdaa microwave radioska la helay 2.7ka lagu tilmaamayo oo uu kaloo markhaati u yahay baynu leenahay qoladan dambe Nobel Prize hadduu 3 jeer waxaa Nobel Prize lagu qaatay isku soo dar isna wuxuu sheegayaa inaanay dunida tani ahayn weligeed inaanay soo jirin qadayaadka markaynu isku darro waxaan leenahay premises-kii labaadna ee sheegayay inaanay dunidu weligeed soo jirin isna waa premises saxa shayga afraad ay daliishadaan waxa weeyaan baynu dhihi waa hydrogen helium ratio maanta waagii hore waxaa jiray science la dacayadeeyo chemistry-ga alchemy la odhan jiray alkimiya kimiyaga wuxuu raadinayay dahabkoo kale in ciidoo kale dahab laga dhigi karo fikrad ahayd laakiin hadda physicskan dambe waxaa la leeyahay elementsku waa canaasir sidooda u joogta laakiin hadda physicskan dambe waxaa la leeyahay canaasirta lafteeda la sameeyaa walidalik xidigaha xoogga u kulul ama dee waa fikradday ka dambaysaba nuclear weapon-nadan iyo waxaa la sheegaya oo dhami waa fikradday ka dambayso in hydrogen atoms fusion intuu ka dhaco ay helium atoms noqoto ay energy soo saarto waa sababta cadceeddu inoo siiso maxay kulaylka inoo siiso waa hydrogen atoms ayaa fusion ka dhaca dabeetana waxay noqdaan maxay helium atoms energy qaybana way soo daysaa qaybtaasa waxaanina soo gaadha haddaba waxay leeyihiin waa la gartay canaasiru thaqiila مثلا carbon iron waxa kan xidigaha waaweyn xoogga u kulul dhexdooda lagu ku gareeya halkaas lagu kariya waana kuwan culamadan ijaas cilmigu waanzalna alhadid bay u dalishadaan
suurtagal maaha terrestrially inuu ku samaysmo ironku inuu dhulka ku samaysmo suurtagalba maaha wuxuu u baahan yahay temperature ka badan xataa kacadceedda dhexdeeda kuma samaysmi karo waxay yidhahdaan xidigaha waaweyn ee supernova kuwa gudahooda buu ku samaysmaa giantka kuwa ah laakiin mas'ala la hayaa hydrogen iyo helium dunida meel kastoo aad tagto way joogaan from where bay ka yimaadeen iyaga see loo kuugareeyey how they have been cooked waxay leeyihiin big banga weyni markuu dhacay ayaa high temperature billions and billions and billions temperature gaadhaya ayaa samaysmay kaasaa atomiskii koowaad ay ku samaysmeen atomiskaa koowaad markay samaysmeen ayaa hydrogen baa u horeysay hydrogen baa fusion ka dhacay dabeetana helium baa samaysantay isku soo dar markaa maanta waa 25 iyo 74 meelahaasay isku yihiin 25% iyo 74% anywhere aad tagta bay leeyihin taasi waxay caddaynaysaa bay leeyihin mar inuu big bankana jiray maadaama meel kasta laga helayo helium and hydrogen waxaasiya haddaba waxaynu leenahay الدليل الأول للملحدين وحوها إن الدنيا static and eternity إن ولقينا سوتشرتي اسبدلانو كل عينين لبضا بوحين لنا scientifically disproved ولقينا ما يسوتشر إن الدنيا مربع بلامتي بل يمكن واحد كنت الماما ينني شرتي 13.7 billion years before 13.7 billion years there was no universe at all kuwada ugu badani ninka ugu fiicanaaya waxaan xisaabin jiray waa saynisyahankii maraykanka ee la odhan jiray Alan Sandage waa ardaygii doctorate-ka markuu soo qaatay Edwin Hubble ka hoos shaqayn jiray Alan Sandage wuxuu modify garay macallinkiisii baade la odhan jiray asalkiisu Jarmalka haba modify garay 1.8 kii oo ka dhigay ilaa 3.5 Alan Sandage haddana modify gareeyay oo 5.5 ka dhigay Hubble constant waxay yidhaahdaan ba 250 meelaha uu qaatay Edwin Hubble ayuu soo yareeyay 75 buu ka dhigay dabeetana 1958 kii buu aragtidan cusub bilaabay nowadays waxay qabaan inay 13.7 plus or minus 0.2 billion years 13.7 يعني less than 14 billion years inay dunidu jirto haddaad tidhaahdo 14 billion years bay jirtaa oo la isku wada raacsiisanyay maanta theoryadii kalena ay dumeen Hoyle theorygiisii isagu wuu ku dhintay horta siduu lahaa dunidu waana static waana caynka odayga mulxidka Ingiriis laakiin maanta waxaanu leenahay labadii premises law of cause and effect wax kasta in cidi samaysay inay jirtaa waa qasab laba waxaan leenahay dunida tani waa xaadis way timi su-aashu markaa waxa weeyaan yaa sameeyey xagee ka timi haddaynu isla qaadanay dunidu inaanay azal ahayn su-aasha ku xigtaa waxa weeyaan mayadaa iska samaysantay uun Dr. Klaus buuggiisa la yidhaahdo The Universe from Nothing mulxidkan yaree qaylada badan leh tviyada iyo meel kasta taagan waxa uu qoray buug yaro uu bixiyey The Universe wuxuu ka yimi from nothing weligii waxaa ku hadlamaya maqasheen qof yidhaahda waxbaa iska samaysmay waxba la-aan buu ka samaysmay oo haddana science sheeganaya waa science-yahan leh dunidu waxba la-aan bay samaysantay waynu ka jawaabi doonaa insha allahu waxaynu ku joojinaynaa marka hore kan bal maskaxda inaad refreshment siisaan oo sheegaya waa burhaanu lxadath aw burhaanu liijaad aw burhaanu lkhalq waxay falaasafadu odhan jirtay علماء المعاصرين يقانين cosmic argument أما cosmological argument أما كلام cosmological argument قارنا يبحيان والله وضع برمسيس هي النتيجة دا سيكا كوبان وشيء هي دونيدة إن لا أبوري حان الرواية القرآن إلهي لي محي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. مسائل كلا إنه فيزيكس كأنه صوت المامنين علماء تفسير كعلم جاي وحشك تقول الرأس سن ومسألة وحكوت المام يندلدوا إنه مر راح ضيع وشرتي. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هما وحي راعين كاسكوابا هيد لو تنبع بالجسي وكلا بحضي بيلي. قرآن كوحك لو شيء يا محي توسع بيلينا يدلدوا باللارنسو والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون بيلهي وباللارننا تفاسير تبحكم دويان. قرآن كوحو شيغيا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب بيج بانج ثيوري كوحو شيغيا لبا جيره aragtiyood mid ay leeyihiin dunidu waa flat universe flat buu sameeyay hadduu flat yahay big crunch wax la yiraahdo dhici doona bay yiraahdeen imika waa big bang soo maaha big crunch baa dib u dhacaya inay dib u soo shuuqi doonto maxay la soo duuduubi doona waa xaashi bay yiraahdeen xaashida dib baa loo duuduubi doona quraankuna muxuu leeyahay yawma natwi as-samaa ka tayyi sijil للكتب سيدا وراغدا لو دوبو وراغدا مكتوب كي wax ku qoran insan loo duuduubo ayaanu duuduubi doona ba ilaahay yiri dabeetana mar labaad hadana maxaa la yiri halka lagu madayne kama badana awwala khalqin nu'iidu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi marka adduun cusub oo kale oo aakhira la yiraahdo la isku xisaabinayo ayaa bilaabmaya kuwaasina waa tafaasiir baad ulama ay tilmaamaan laakiin inagu mas'alada inuu socono waxa weeyaan ملحدين تاركتيدو دي هادونيدان waa eternity and static inay scientifically disproved tahay wallahu a'lam